Waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada muuqaal kale. Muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa shanta fure ee risqigaaga barakeeya. Ereyga barako macnihiisu waa kordhin, dhisid iyo joogteynta khayrka. Waa awood rabbaani oo ka dhigta wax yar in ay wax weyn qabtaan. Waxaad arki kartaa qof mishaarkiisu yahay aad u yar yahay laakiin gurigiisu nabad yahay. Caruurtiisu ay caafimaad qabaan, haddana wax u dhiman ama ka maqan aysan jirin. Halka qof kale oo malaayiin shilin qaata uu dareemayo cidhiidhi iyo dhibaato aan dhammaad lahayn. Midda koobaad, furaha koobaad waa at-taqwa, alla ka cabsiga. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ballan qaaday in qofkii ka baqa uu u furi doono ilo risqi oo uusan marnaba filaynin. Barakadu ma aha xisaab hal lagu daray hal oo laba ee waa naxariis alle. Marka aad ka fogaato xaaraanta, alle wuxuu xalaashaada yar ku barakeeyaa sidii ay u badnaan lahayd. Furaha labaad, al-istighfaar, dembi dhaaf weydiiska. Noloshu haddii ay kugu adkaato, risqigana uu cidhiidhi noqdo, fiiri dembiyadaada. Istighfaartu ma aha keliya dembi dhaaf ee waa furaha roobka, maalka iyo ubadka. Sida ku xusan suuratu Nuux, waxaan ku niri dembi dhaaf weydiista rabbigiina wuxuu idin kordhin doonaa maal iyo ubad. Furaha saddexaad waa as-sadaqa, bixinta. Xisaabta bini'aadanka, haddii aad haysato 100 oo aad bixiso 10 shilin, waxa ku haraya 90. Laakiin xisaabta barakada, bixinta sadaqadu ma dhinto maalka, balse waxay u tahay talaal ka ilaaliya in uu xumaado ama kaga baxdo dhibaato. Sadaqadu waxay soo jiidataa naxariista alle. Furaha afaraad waa kalahaada. Nabigeena naxariis iyo nabadgelyo dushiisa aatee waxa uu ku duceeyay Ilaahay oo u barakee ummadeeda kala haysa. Shaqada la qabto subaxii hore kadib salaada subax waxay leedahay barako ka duwan midda la qabto duhurnimada. Hurdo badan ma keento barako. Firfircoonida subaxii ayaa ah sirta guusha. Furaha shanaad waa mahadnaqa. Haddaba qaanuunka barakada ee ugu weyn waa haddii aad mahadnaqdaan, waxaan idinku kordhin doonaa nimcada buu yiri Allah subxaanahu wa tacaala. La in shakartum la aziidannakum. Marka aad ku qanacdo waxaad haysato, alle wuxuu kaaga dhigaa mid kugu filan, wuxuuna kuu kordhiyaa maalkaasi si tartiib tartiib ah. Ha raadin badnaan ama wax aad u badan oo siyaada ah adigoo barakadii luminaya. Risqigu ma aha keliya lacag, waa caafimaad, waa ubad khayr qab ah, waa xaas say wanaagsan oo kula fahma nolosha, waa nabadgelyo. Baraka la'aantu waxay u eg tahay weel daloolsan oo wax kasta oo lagu shubo ay ka baxaan. Maanta ka bilow in aad istighfaarta badiso si aad u aragto mucjisada barakada. Dad badan ayaa u haysta in risqigu ku kooban yahay lacag iyo hanti, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in risqigu ka ballaaran yahay lacag la arko. Risqigu waa neef, waa waqti, waa caafimaad, waa degenaansho qalbi, waa caruur khayr qabta, waa xaas fahamsan nolosha, waa nolol macno leh. Waxaana sida muuqato muhiimadda barakada macnaheedu waa in khayrka uu bato, sii jiro, faa'iido yeesho, lagana nabadgalo khasaarada. Taasi waa sababta aad u aragto qof dhaqaale ahaan yar balse ku nool farxad, iyo qof ka maal badan balse ku nool walbahaar iyo murugo joogto ah. Barakadu ma timaado si markaasi ula kaca, waxay leedahay fure rabbaani ah. Haddaba sadaqada marka aan ku soo noqonno, culimadu waxay ku tilmaameen sadaqada caymis rabbaani ah oo ka difaacda dadka khasaare aan la filayn. Qofka sadaqada joogteeya xitaa haddii uu dhaqaale ahaan yar yahay, wuxuu dareemaa ku filnaansho iyo qanacsanaan. Sadaqadu ma aha keliya lacag, waa waqti aad ku caawiso qof kale, waa erey wanaagsan ama kalaam fiican oo aad ku dhahdo qof walaalkaaga, waa aqoon aad qof la wadaagto. Furaha afaraad waan ka soo hadalnay shukriga, mahadnaqa. Haddaba ha ku mashquulin wax badan adigoo luminaya barako. Qaanuunka rabbaaniga waa cad yahay. Mahadnaqu waxay keentaa kordhin. Mararka qaar ma aha arrin markaasi dadku ay lacag iyo waxyaabo la mid ah inta badan ay ku fikiraan, balse waa degenaansho qalbi, farxad iyo xasilooni qoys. Haddaba dad badan ayaa shaqeeya, dadaala,
xilli dheer hawshooda ku bixiya haddana noloshoodu ma degna. Dhinaca kale waxaa jira dad kale oo dadaalkoodu yar yahay balse ku nool nolol xasiloon, qalbi degan, qoys faraxsan. Farqiga labadan qof ma aha xirfad ama nasiib balse waa barako. Barakadu waa nimco Alle subxaanahu wa tacaala uu bixiyo, mana ku xidhna xisaab caadi ah. Waa wax ka baxsan aragtida indhaha balse si cad looga dareemo nolosha qofka. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee barakada baabi'iya waa ku milanka xaaraanta. Xitaa haddii ay yar tahay, culummada islaamku waxay si isku mid ah u caddeeyeen in uu risqiga xaaraanta ahi uusan weligiis barako yeelan, uusan qalbiga adkeenin ama qalbiga uu adkeeyo oo uu keeno walbahaar iyo murugo joogto ah. Qofka ku dadaala in uu hubiyo halka uu ka helayo maalkiisa, cuntadiisa, inta badan macaamilkiisa, Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bedelaa ku filnaansho iyo degenaansho. Xalaalnimadu waa aasaaska barakada. Qodobka labaad, cadaaladda iyo ka fogaanshaha dulmiga. Dulmigu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu degdega badan ee barakada tirtiro. Dulmi ma aha oo keliya garaacid ama dhac, balse waxaa ka mid ah mushaar ku dhaca xuquuq darro, khiyaano ganacsi, xaq la duudsiiyo qof kale, balan la jabiyo iyo arrimo kale. Qofka dadka dulmiya, xitaa haddii uu inta badan maal helo, wuxuu luminayaa barakada, nabadda iyo xasiloonida. Culimmada tafsiirka waxay tilmaameen in dulmiga uu keeno faqri qarsoon inkastoo jeebka uu buuxo. Sidoo kale xiriirka qaraabada ayaa ka mid ah riximka oo la xiriiriyo waxyaabaha faa'iidada iyo risqiga kordhiyo. Waa mid ka mid ah siraha risqiga lagu kordhiyo waa xiriirinta qaraabada. Tani ma aha talo bulsho oo keliya ee waa amar diini ah. Xiriirka qaraabadu wuxuu kordhiyaa cimriga micnihiisa, wuxuu ballaariyaa risqiga, wuxuu keenaa barako qoys. Xitaa salaanta, wicitaanka ama gargaar yar oo qaraabo la gaarsiiyo wuxuu leeyahay miisaan weyn oo barako ah. Qodobka afaraad waa tawakulka dhabta, ku tiirsanaanta Alle subxaanahu wa tacaala. Dad badan ayaa ku wareersan tawakulka. Qaarna waxay u fahmaan caajisnimo. Tawakulka waa inaad dadaasho, inaad qaado sababaha ama alla timaado sababta uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu irsaaqayo, kadibna natiijada Alle aad u dhaafto. Qofka qalbigiisu Alle ku xidhan yahay ma cabsoodo mustaqbalka, mana ka mashquulo walwal joogto ah. Degenaanshaha qalbiga laftiisu waa barako weyn oo keenta guul. Qodobka shanaad, niyad wanaagga iyo ujeedo daahir ah. Camal kasta oo niyad fiican lagu sameeyo wuxuu yeelanayaa miisaan ka weyn camalka laftiisa. Shaqo la qabto si xalaal ah, loo niyeysto, in qoys la masruufo, in qoys isku filnaado, in bulsho wax lagu kordhiyo, Alle wuxuu ka dhigi karaa mid barako badan. Xitaa haddii dakhliga yar yahay, niyad xumadu waxay camalka ka dhigtaa mid qalalan. Qodobka lixaad, akhlaaqda wanaagsan. Akhlaaqda wanaagsan waa risqi aan la arkin. Qof edeb leh, dadku way u fududaadaan, fursaddu aad ayuu u helaa, caawinaadana waa uu kasbadaa. Dad badan ayaa ku helay shaqo, saaxiibtinimo iyo gargaar akhlaaq wanaagsan darteed. Taasi waa barako Alle uu ku shubo qalbiga dadka kale. Qodobka toddobaad, ka fogaanshaha xad-dhaafka isbarbardhigga. Qofka mar walba isbarbardhigaya dadka ka sarreeya, qanacsanaantu ma helo, barako ma dareemo. Islaamku waxa uu ina barayaa in aan fiirino kuwa naga hooseeya si aan u aragno nimcada Alle. Qanaacadu waa sir baraka oo dad badani ay dayaceen. Haddaba haddii aan soo gabagabeeyo muuqaalkan, barakadu ma ahan wax la iibsado, mana ahan wax la qiyaasayo. Waa hadiyad Alle subxaanahu wa tacaala qofka jidkiisa hagaajiya uu siiyo. Haddii aad rabto risqi barako leh, xalaasha ku adkayso, dulmiga ka fogow, qaraabada xiriiri, Alle ku kalsoonow, niyadaada daahiri, akhlaaqdaada hagaaji, qanaacaduna baro. Nolol barako leh waa nolol sahlan, qalbi degan iyo mustaqbal Alle kuu fududeeyey. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkan. Waan filayaa in wax badan aad ka faa'iidi karto. Waa maalin Jimce ah, salliga Nabiga aynu joogteeno sallallahu alayhi wasallam. Waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.